ciidamada booliska gobolka Daadmareero muddooyinkii u dambeeyay wada hawlgallo lagula dagaalamayo maandooriyaha khamriga ayaa maanta dab qabadsiiyay ilaa 400 oo litir oo khamri ah waxaana goob fagaare ah oo lagu gubay maandooriyahaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Daadmareero Cali Ismaaciil isla markaana halkaasi ka yeedhay xukunka maandooriyahaasi iyo gaadiidkii wadayba khamrigan in lagu burburiyo oo maxkamaddu soo xukuntay isla hadda ay soo xugtay gaari xaajeeda oo saarafo konton iyo 80 iyo 6 lamarkeedu yahay sida darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay xaajeedii lacag ganaaxa oo dhan $600 iyadoo lagu qiimeeyay $6,000 xaajeedii waxa kale maxkamaddu xukuntay khamrigan in la burburiyo isla imika waxa kale xukuntay in eedeysanayaashin marka la aqoonsado la horkeena maxkamadda si loo mariyo cadaaladda taliyaha qaybta booliska gobolka Daadmareero gaashaanle dhexe Axmed Cabdullaahi Cabdi iyo waliba qaar ka mid ah culimaadudiinta iyo madax dhaqameedka gobolka oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen waxaanu dadka uga digaynaa waxa inay ka cabidiisa iyo ka ganacsigiisa inay iska fogaadaan haddii kale wixii dib ka soo gaadhay iyagu diyaar u haadaan xarigeedii waa 5 kun maraya 5 sano maraya xabad baa soconaysa gaadiidkii oo lagu reeyaa imanaya waxa yar uu ka helay waliba ilaahayna ku ciqaabaya maanta qiyaamaha inuu iskaga fogaado oo ilaahay wax dhaamo weydiisaan ayaan ku codsanayna dadka waxan ka shaqeeya waa maandooriyaha khamriga oo in kastoo dadka cibaadeysanayaan oo ilaahay caabudayaan oo la sooman yahay de isagu aan istaagin taasi waxay tusinaysaa xaq iyo baadilku siraacoodii iyo dagaalkoodu ma dhamaanayo ilaa qiyaamaha ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Daadmareero Axmed Diiriye Cabdullaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgalkan ay ciidamadu ku soo qabteen maandooriyaha khamriga isagoo bulshadana ugu baaqay inay booliska ka gacan siiyaan soo qabashada mukhaadaraadkaasi halkan waxaan u joognaa khamri dhan 384 litir oo ciidanka booliska gobolka Daadmareero ay soo qabteen waxaan muddaa intan rabadaanta inay isdhaahdeen ciidanku waxa weeye waa sooman yihiin waxa weeye ciidanku habeen iyo maalinba waxay heegan ugu jiraan inay khamriga la dagaalamaan oo ciidanka ku guuleystay inay soo qabtaan waan uga mahadnaqaynaa waxa weeye waa fasahaad madeena u socda oo laga qabtay waxa weeye gaadiidka lagu qabto dawladda la wareegaysa Muuse Salabaan Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Udweyn.